Bismillaah, magacaygu waa Nimco Badra Cabdi Sabuub. Waxaan soo gudbinayaa gabay yar oo gaaban, magaciisana la yidhaahdo Saluug, kana hadlaya siyaasadda iyo waaqaca taagan. Waayadaas saley gabay ma tirisada raggeeraare, ma samaynin maansooyinkii saaxiga ahaye, watiyanka saaqiday inaan dhab u sameeyaye, sayeeshee kama suulinoo waa sad gooni ahe, maantana halkaan sahamiyaan sadar rafaley. Waayadaa saluug baa jiro wasahwiyayaye, waxiisaaqay mooye hurdada waan ka salalaye, Somalilantii saxnayd sigaasha weeyaane, sixir baraarka muuqiyo dhibtaa lala salcaamayo, een cidiina suuraynin baan ku sawirayaye, siyaasiga dhibtaa sahashadow malihid sii joog. Waagii aan siqiriyo ahaa sabiga raad qaaday, iyo maanta oo aan siriya caadba kala saaray, dalka waanu soo saahidnaad nagu siraysaane, dulmigiisii aduu suntaa weli sifaysaane, idinkuna waxaan soconin baad suuragaalisaane, dulmigaa dahdaan suulinaad sara u qaadeene, taariikhdan aad noo sugteen malaha sooyaal. Si kastaba ha haatee hadday noloshu seegseegto, oo cadaaladii loo sinaa saami lagu qaato, oo xaqii dadka loo sinaa lagu safaadayo, oo dastuuradii loo sarjaaray soorya lagu raadsho, kala socosha mooye markaa malaha siraa. Saadaasha ii muuqataa saban xun weeyaane, marba soodhka aadadi sitaa sarar ku gooyaye, taladoo ku seegtana marbaad dib u saluugtaye, sal fudayd mar buu kugu noqdaa sun iyo waabay. Keli taliska soocii hadduu sama abuurayo, taliskiisii adee socdaa saanad dhaalin laaye, saranseerka waayuu markuu shacabka saameeyey, waa kuwii u suudalay inay wada sadqeeyaane, adiguna sidiisa taho way ku sidataa.